السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaad idinkaga sheekeynaa qiso cajiib ah, qiso dhex martay dhakhtar iyo bukaankiisa. Bukaan baa dhakhtar u imaaday markaasuu wuxuu yidhi doctorow waan khasaaro oo dhibaato iyo guuldartii ugu weyneed baa ila soo darstoo dhah. Markaasuu dhakhtarku wuxuu yidhi haa waan ka xumahay inay xaaskaada geeriyood allah u naxariisto. Bukaanku wuu banaxaw yaa kuu yidhi xaaskayga dhimatay alxamdulilah xaaskayga way fiican tahay. Haddana wuxuu yidhi haa sax waan ka xumahay yidhi kasar baa kugu dhaco jirkaada ku faaf. ninkii waaba yaab waaba naxay wuxuu yidhi maxaad ii habaartay doctor alxamdulilah waa caafimaad qabaa. Doctorkii waa hadalka qaatay wuxuu yidhi horta iiga waran wiilkaaga khamriye cabkaa waa xabsiga mar walba u galaa. ninkii waa xanaaqay wuxuu yidhi ani maba dhalin oo dhow wiil oo khamriye caba wiilkayga wadaad waaye weligiisna khamri ma cabin weligiisna xabsi ma gelin. Dhakhtarku wuxuu yidhi bal ii waran sidee wax u jiraan waxay ugu tiri dhibaatadii ugu weyneed baa igu dhacday bal ii waran sidee wax u jiraan. Shakadan waxay qusaysaa fakarka togan iyo fakarka taban. qofkaas wuxuu ka cabanayay shaqo la'aan laakiin fiirtidu u arkay in khasaaro ku dhacday uu arkay dhibaato ugu weyn inay istirso marka laakiin dhakhtarka uu dareensiiyay wuxuu ka cabanayay wax ka weyn inay jiri karaan isla fikirkii wuxuu ka cabanayay wuxuu u fiiriyay si taban u fiiriyay. Waxaan ka soo xigtay buugga dhabar adayg ee uu qoray Cabdiraxmaan Waabari. Maxaa ka fahantay adiga bal ii sheeg. Assalaamu calaykum.